مسؤوليinta xisbiyada mucaaridka ee wadani iyo ucid iyo waliba sidoo kale qaar kamid ah bulshooyinka magaalada Boorama oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boorama ayaa waxay si wada mid ah u eedeeyeen isla markaana ay eedeymo u soo jeediyeen xukuumadda Soomaaliland iyo waliba sidoo kale wasiirka hawlaha guud taasoo ku tilmaameen in dhulboob ku wadaan dhulkii danta guud ee gudaha magaalada Boorama waa kuwan iyaga arintaasi ka hadlaya ana saaka oo khamiisa shirkan jaraa'id waxaan u qabanay waxa weeyaan dhul ay dadweynuhu lahaayeen oo ku yaala magaalada Boorama ee gobolka Awdal oo dawladdii kulmiye ee Silaaya madaxda ka ahaa ay ka iibisay dad shacbi ah dhulkaasi iyaga maalin hore aan qabtay waxaan halkan ka sheegayay in ay guurayaan oo aad moodo dawladda kulmiye uu garwadeenka ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Silaaya madaxweynuhu waxaad moodaa in aanay ku talagelin in looga dambeeyo talada waddanka Soomaaliland waxaan saaka shirkan jaraa'id kaga hadlaynaa arrin bulshadu ay aad uga qaylisay oo ah wasiirkii hawlaha guud oo maalin dhaweyd booqasho ku yimid gobolka oo imaati ku yimiday arrin hore loo dareensanaa oo marka hore dadweynaha been loo sheegay oo aanu ka hadalay oo la yiri dhulka lama iibinayo inay soo baxday inuu maalin wax dhaafsanay isagoo joogay warqad digreeta u qoro niman ganacsatada isagoo mulkiga ku wareejinaya waxaan u maleynayaa dadweynaha reer Boorama wixii sharci darro way iska difaaci karaan iyagoo noolna waxooga laga qaadan maayo arrinkaana waxaan ugu baaqayaa dadweynaha reer Boorama inay mudaharaadka hortagaan maanta waxa uu daaraya shirkayga jaraa'id oo kaga hadlaynaa hanti boob ballaaran oo lagu soo qaaday gobolka gaar ahaan degmada Boorama nin wasiir ah oo la yiraahdo wasiirka hawlaha guud iyo guriyeed la yiraahdo Cali Marreexaan oo wadigii ku arag magaalada tahay jagal la iibiyo ma ahayn shaqadaadu waxay ahayd inaad dhulka danta guud adar yeesho dhisto sida eribeedkii Boorama arrinkaas waxa weeyaan dhulkii danta guud ahaa ee dhalinyarada in ka soo koraysa oo kamidna aan ilaashanaynaba ee lahayn maxay ahayd waxba lagu qaban doonaa in dhulkii danta guudba wasiirada haystaa in ay soo hunguriyeen tamacna ay soo galiyeen isla markaana ay iibiyeen meelaha qaar waxa la sheegay in dilaalba u direen oo laba meelood oo kamid ah in dilaalba u direen dilaalinta suuqa ugu jirta oo la sheegay in la kala saxeexdaba horta waxa nasiib darro in maxay ahayd gobolkii xaqi wax looga qaban lahaa xubinta ugu sareysa gobolka bada saabka xal wax ka qaban lahaa in maxay wax ka sii gooyo ka sii meenis gareeyo horta waa nasiib darro laakiin waxa weeyaan muhiimadu waxa weeyaan dhulka danta guud meelaha laakiin ugu xurmada bal ugu wanaagsan biliicda magaalada ku jirto in la taataabto la farageliyo ma aha hadii xukuumaddu taala timidana tu laga yeelayo ma aha si kastaba aatee goobahan lagu eedeeyay inuu iibiyay wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta Mudane Cali Marreexaan ayaa ah dhulkii danta guud waa Shacayb Maxamed ka shacbiga TV-ga caalamiga ee bulsho magaalada Boorama.